runtii maanta anaga waxay tahay farxad gaara shakhsiyan dadaal aan inta wasaaradda nimi aan wadnay maanta waqti yar gudahood in kooxdii ugu horeysay ay aan wareejinteedii aan galno oo golaha wakiiladu ay qaataan aad baa ugu faraxsanahay waa uga mahadcelinayaa gudoomiyaha golaha wakiilada runtii markay dhalinyaradu u yimaadeen codsiga weydiisteen wiilo soo xiriiray SPC team adag oo dhisan bay ahayd laakiin waxaan isla qaadanay in koox cid magaceeda lagu ciyaarayo aysan jirin hadaysan kooxda sponsor fuula aysan siinin kooxaha hadda dhisan oo shirkadaha magacyadooda ku ciyaara oo aan sponsor iyo caawimaad midna ka helin in ayagana ka bedeli doono oo qareemid u raadin doono runtii sportsku balaaran yahay xukuumaddu waxyaabaha ugu adag ay xoog saarto waa koobka gobolada dawladda Puntland koobkan hadda sanadkii hore aynu qabanay oo sanad walba la qabto $105,000 oo lacag ku baxday 8 gobol oo Puntland ciyaaraysay runtii lacag sahlan maahan dad 500-600 kor u dhaafaya oo gobolada ka yimi baa gaalkacyo tagay $105,000 akoonka dawladda laga saaray hay'ad ma bixin shirkad kuma darsan cid $1 ku dartay ma jirto marka culayska inta leeg oo yeerliya haddana waxa noo dhor horyaalkii oo aan rabno in mar walba la qabto uu joogto u dhaco oo yana naadiyadii culayskeedu uu jiro marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta hadda xarumaha dawladda aad baan wacyigaas u wada gaarsiinay waraaqaan dhamaantood u qornay waxaan ka codsanay maxaan ku dhahaa kooxaha cidii aan sponsor haysan inay naga qaataan